kulanti haboon oo wanaagsan dhammaan akhyaarta sharafta mudane hawada sida tooska inooga daawanaysay meel walbo daafaha dunida aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aan ugu magac darnay barnaamijka abwaandoodan barnaamijkani waxaanu ku eegi doonaa qaybtan ugu horeysa isagoo noqon doona barnaamij taxana ah oo markaasi hadba aan ku soo qaadan doono wacyigii waxyaalaha soo jiri jiray oo markaasi abwaandoodana wax ka weydiin doono qaybtan ugu horeysa barashada abwaanka ayaan ku soo qaadanayna ugu horeyn abwaan Cabdullaahi Macalin Axmed abwaandoodan Soomaali badan oo magaca maqashay oo dhigta ka maqashay muuqaalkaaga wali ka qarsoon yahay ayaa badan ugu horeyn waxaan jeclaanayaa inaad ku soo dhawaato telefishinka Soomaalida Itoobiya oo ah markii telefishinka ugu horeeyay Soomaali deegaanka ay leedahay laga wareysto ku soo dhaw aad baad u mahadsan tahay una sharfan tahay waxaan salaamayaa marka hore idinka laga bilaabo ummadda luqadan ku hadasha ee Itoobiyawiga marka aniga waxaan ku sheegayaa su'aal fara badan in igaga timid aniga oo ay igu weydiinayaan taariikh nololeedkayga marka iyadii aan u sheegi jiray ummadana ku celinayaa waxaan dhashay 1941 waxaan ku dhashay deegaanka Wardheer baadiyaheeda dadkii dhalayna dad wuxuu ahaa reer guuraa oo xoolo dhaqata oo ari iyo geel nugul aan ahayn ha ahaatee anigu ummadii aan ku soo dhex koray bay'adii wixii ay kaga hadli jireen taariikhaha iyo dhacdooyinkii jeerba si ahaan jiray iyo maxaan ku iraahdaa xeer dhaqameedkii lagu soo dhaqmi jiray asluubsayna cimriga dheera iyo luqadii xeer dhaqameedka lagu lahaa iyo dhacdooyinkii soo jiri jiray hore marka aniga oo aynigaygu yahay 16 jir yaan bilaabay sheekadan la yiraahdo gabayga iyo geeraarka iyo heesihii dhaantada iyo waxyaalo saasoo dadku waxay jireen laga heesi jiray dhaantooyinka waagaas yaan bilaabay marka taariikh nololeedkaygu wuxuu ahaa noocyo saasoo dad reer guuraa oo aan ku dhex noolaa marka geel iyo ari bay lahayn san hore kuugu sheegay dadkaasuna waa dadka la yiraahdo dadka dhaqankii hore la dhigi jiray reer caadka ee daraa jiray yoo ahaa waqtigaas dee wuxuu kala lahaa dhulka wuxuu ahaa ceel iyo carshin ee la kala dhigi jiray marka si haddii ay abaaro dhacdana aynan xooluhu tigaadu waayin yaa xeerku wuxuu dhigi jiray in doogaada la taga carshin dhul ceelasha ka fog marka ay tahay xagaa ama jiilaalna waa la soo ceeldegi jirayoo meel kolkay u dheer tahay ama laga soo hoydo aroorku subaxii tagi ka soo hoydo ama uu habeen guulo ama hadday badato laba la guulo yaa la tagi jiray intaa waxaa la dhihi jiray dhulka ceelowgaa la dhihi jiray marka sidaa darteed xeerkaa dhigayo lama ogolayn in haddii uu roobdo waqti xilli roob ay tahay in qoys keliyuhu ku hadho dhulka ceelowgaa ceelka iyo inta jilaaligii iyo xagaagii looga arooree looga cabee loo daaqo cidi kuma hadhi jirin marka la yimaado ee dambana waxaa loo iman jiray sidii ugbaadka kore loo jiray carshimaha yaa loo iman jiray jilaalkiina carshin cawskii iyo geedihii nagaadh macdiyo intaa leeg iyo doogii qalalay ee geedaha ee dabaysha uruurisay oo xaab la yiraahdo oo buul intaa leega oo jilaal kasta oo dheer aan laga soo jeedsan yaa saasaba marka doogaadiina in ugbaad la joogo diraacdiina ugbaad la jooga bay ahaan jirtay aysan walqaska ma ahayn xeerka wax lagu hagi jiray oo lagu kala socon jiray
حتى جيدا الروح جوبي كريه مجرى وقتها كلا إنه كشيء زنبانو مالنا تيان قال واتهاي أبوان آديات أيام كوجو مهد عليا فرصة دنقالية هذا نوصي سي برنامج كان أو ينون نغندون برنامج تحنا قيبتني waxaan ugu magacdarnay barashada abwaan dhoodaan sidaad inoo sheegtay abwaan waxa tahay abwaan u dhashay deegaanka Soomaalida Itoobiya maantana Soomaalida afka Soomaaliya ku hadasha meel kasta ay joogaan abwaan magac weyn ku leh ayaa tahay runtii waxa la oran karaa abwaanada intooda geeriyootay mooyaan abwaanada waqtigan jooga abwaankooda ayaa tahay marka abwaan gabayo badan ayaa tirisay suugaanta Soomaalida sooyaalka Soomaalida ayaa aqoon badan u leedahay muddadaad ku soo beertay 16 jir ayaad ahayd marka hidaraac miyay ahayd mise wax gaaro rabbaaniya oo Ilaahay adiga kugu sameeyay bay ahayd qaybtan suugaanta waxaan u malay horta inay suugaantu hidaba lahayn baan u malay dhaqan mooyaane hidda inay lahayn waan u malaynaya maxaa yeelay abahay iyo awowgay midna gabay ma sheegi jirin iyo geeraartoona iyo hees iyo waxba isaarmayna samayn jirin mana ayna xafidi jirin baaban u malaynaya oo dadka maansabooliga dadka la yiraahdo ee hal abuurka qofka kale yiri qabta dad saasa jiri jiray hal abuurka kuwa qabta kuwa hal abuura iyo kuwa qabta jiri jiray kuwa qabtana maansabooli baa la dhigi jiray maansabooli buu la yaqaanaa inoogu yeedhay isaga garantoona warigi wixii saas gabayaashii laga yiri iyo heesii laga yiri iyo hebel inoogu yeedhay ama inoo gey saasa dhalinyaroonka dadkii yidhi jiray marka inay taa aqoonina waan u malayn kow haddaba kuwa ka sii horeeyay gabayadood oon haynayna ma ayna jirin sida badan awowgii saddexaad baa waxaa la igu sheegay geel beri la qaaday ay u gurmadeen ama birmad ahaayeen faras geed ka muday gubad ah shooyada gudcura oo garaar yar ka sheegay uu faraska ugu calaacalayo geeli reer hebel gamaan loo tabcan waay galabtii la ka haystay maartay yaan maxaan ku raad faraskiisa geydhaale la oran jiray geydhaale oo aan jeclaa baan ku garaacay galoole inuu yiri maartay marka waxaas iyo waxyaalo saasa mooyaane wax baartay xiriir maana maqlin dad un ehel oo kale oo badan oo gabi jireen way jireen oo isla familiyalkaas maartay way jireen oo kala duduuna oo kala horeeyay marar kale in la soo qaadaa suurowda iyaga xigmad rabbaani anay gaar Ilaahay anigu hurdo oo geel la jooga balliga sirow agtiisa baan waxaan ku soo toosay anoo kor dhawaaqayo oo gabay sheegayo kolkaan soo booday labadii kelmadood ee ugu dambeysay baan yaan marta yaan xusuustay labadii kelmadood ma mid erey ku jira baba aan garanay ummadii falaad xumata qambari hadaan fiirsho alaylayna foorasha waa fariidnimo baan ku soo toosay markaana ummad ma ana aqoonin inay geedka tahay inay geelan la jooga tahay inay cawska tahay ma ana kala garan laba sano kadib nin oday ahoo culimo ahoo Sheekh Maxamuud la yiraahdo ana wali geerisa maqal yaan laba sano kadib weydiiyo adeer ummad waa maxay rasuul waa inaga saanama inaga reer hebel ah intuu ugu qoslo istaago soo jeestay buu yiri maya dadka bini aadmiga yaa la dhihi karaa ummad maartay eriga ummadda ma ana aqoonin kolka afkay ka soo baxay ma garanaysa marka meeshaas ummadana aan maartay ka amba qaaday sheekooyinka gabayga la leeyahay watahay abwan waxaan filayaa in xigmad rabbaani si gaar Ilaahay kugu manaysinay ahayd waad hana qaaday gabayadii 12 jir ayaad ku bilowday bal gabayga kugu horeeyay adigu as aroon karta abwaan baa tahay ama dadka ay kugu yiraahdeen Allah ilaahay abwaan baa tahay gabaygay baa ugu horeeyay aad tiriso wax badan baa la dhigi jiray saas baartay laakiin waaban ilooba waxaan ka xasuustaa libaax intuu habeen ii soo dhacay gool horweyn aan haya nirgii intuu ku dhaxdhacay nirig intay dayrtii dhalatay oo gugi hashu maaragtay ka rintay aan laga reebi jirin oo subaxii martii joogto aan ka maali jiray aan laga reebi jirin geel
يولبا حكرك كجدع كل كاس بهالشو وحكا علوز وهذا تانجل لك مركزين ريتي بتشبطي معي عدي بنتك وبنفن مركزا جيلي دي مركزا سوب قوري دبلان كطوري دي بدو عرّي مركزا حقا قوري دب كلها أوض وكل حد دحيلي كدعتي أنا اللي ريتي تشي دي وكل بعبارة أوض إن أنا كده بحير يبال كي جمر ويقول صار نقضي شنقد بانتري ما يوسيدي واحد شيء فوق رقان صدي وكله هل كان أوض أكتهستي ده بدأ دبكي عن طوري دحولي كداتي دحوله انت الله حيدي كو غالبا الشعري بالكيبا واسلك بسم الله الرحمن الرحيم بالقيل دريان كيدي لغا ورري جيل العقتيده سو غلايو ان اسنقين يا وحي مقلو igu soo orday baalkii intu cabaday cararay biimateen kulka waxay igu yiraahdeen intaanaan ku iman baalkaanu yeedhiisa annaguna salale alla shoo maxaad baqaysay bay igu yiraahdeen marka nirgti subaxii anagoo jiidino war maxaa hay miya naxsan tahay oo ag joogjoonay naga bakhtiday kulkaas nin baa noo yidreeri ka yim isla markii barqadi kulkaas yiri libaaxa meeshan ka orday shitigi nirgta dhalay inay tukuba iyo xalay quraacda mataanaha ku bakhtiistay yiri marka naxdin bay keedeen ma nirgti u daaya qalbiga ku soo dhacday intuu riti firfiican oo qoor badan buu ahaayo geel doorano markii wuuna layliyanaayo waa la raran jiray markii uu naqa geel karin uu soo gaadhay waa lagu sii dayn jiray marka barqadi yaan weeli intaanu markaan geelasha la joognay waxaan idhi gaadiid ritigii noo ahaa geel la u joogay horta waxaan idhi gunta micida gaws isagii baan tilmaamay gunta micida gawsaha dambiyo dhoosha soo godatay gafuurka iyo geedada lamaan guudka iyo shaashka qalka labada giir joogsaday ee bakala gijay golxubada qarsoon iyo cidida galalka loo yeelay goorada hashu kaga degaa waa mid geeriday nin iftiimo ula soo gabada gumuca mooyaane gud curmaar rawla habeen samada oo gaaran waxay ahayd bil cadarta xagaaga oo horeysa يعرفوا ضرورة بدني تحتي عليها يا وقت يكون دم بيهد قر دموع أو ضرور لبين عهد ما شو مرت قد عمر الرولة بين سمد وقر جيرياله ونقول اللي بحني ما يسقولين بعدي ونمن كبانو شوابية حال ساي والها الجادي رتيجي إنه هجر لو شوي يولي بهنا قادر بو قاعد يوديله أيده قرنا قالنا قرف كمان اللي قبل تدي بلقوا عنا جاح من نقطتين وإما قبتين هذا جود المتيسين كأشان بكي وقبته قريين نفكي يقول كمين أقول قبل أن عذابي أنت قول دريه هو جد قال لي بحوله عن تكوسه ودناها قركيزي هلقا قربك مش تقول لي إلى بري أفت اللوجوي أديكوا هبين قوري يقول إن حد شوه وقال الضيدين يو ولي عد سوق قارن مس قلالن قاضي عبس جني يوابيله شيل بس كهجرش يمد أظهري وقداشو أبرز قابن جودا ددي اللي قم جرانك قم مده إلى كأنسي فرق جمورو قالوا أنت كوب بحضو قاري كوب دونتو جيل جري الله كوب دير الله كوب صاق قاسو اللي وقفسين كوب تتجلي بوجوجو حبط لو صاق قري الله جيسا كام مرن قرنا الكوب دعيو إذا ما اللي قبي شركاو قال قال الزوج واحد جيس تابضن بعد برقدي مركا جيلش مركا نسور رجني شو شنطي بركة عصر مغرب كورسة هل كان جيلش كسور رجني ورتيدا يلا بح بضاد أوستر وكذا عادين نق كيدا عادين ونقلب الدم به مركا زانو جيلش إسكا كحسر ورم علبة ماشي يبدو جيلش بحيرة السنة جيلش كلام حيرة وقدر دقاي مارتي أنا صح على الإيسو كل مدي مركا أنه إسكا عوين إنه حنو يمي لبن إنه باتري أوضنا يقبطون قرناي وإنه يمدين لو قري وتين مركز زيد هذين إن كل ساسة وساسة وحبارته إلى الشرع ما يعمل ليس وريسي حبدي قلبت إذوكم ما مقشين أنا قابل ردي بيله هيه اللي بقى حور تقعين بار قبل لك ودبردو ككر رئيس وعنين مويه بقيدا قلان قلقه هريري هوستي سايو كبودي
markaasaana ku naxnay kolkaasaan qoryuhu maan iskaga fiiqno marka ninkii labadooda weynaa haddaan ahay yuusuf qani ibraahim baa la odhan jiray wuxuu yidhi haddaan xabad arki jiray libaaxa xabadi way taabatay wax yeeshaysa garan maayo yuu yidhi markaasuu yidhi xuseen guaad war inakaan ka daba tagne kolkaasuu yidhi libaax dhaawaca lama raadiye inaga daabaan ku idhi oo bahalkii xabadi taabatay mooji geeljirii baa qayliyo yidhi alla waa libaaxu saaka habaarayay qumay weeye anna nin yar baan ahayo qumayga cudad baan ka qabay qumaynimada oo wax folxul iyo cay baan moodi jiray arrintaa halis baan ku galo kol baan dacayna isdilo markaan libaax aragnay maaragtay nin odayoo geelasha u weynaa baa la ii dirayo maaragtay intuu tooridii iga qaaday oo tooriyihii iga xaseeyey maaragtay yuu gaadhigaa markaasuu nin dirayo reerkii quraacda mataalaa agteeda degana buu yidhi ii soo orda kuwaan walaalnahaa yimid waa lay kaxeeyey reerkii baa leegeyey kolba nin baa i canaananayo iwaanay aabbahay baa aad i canaanto intuu cidlo ila tegay haddana isa sabay wuxuu yidhi waxaan aad leedahay waan isdili maaragtay qumay baa noqday ma aha qumaynimadu ceeba waa wax fiican buu yidhi oo maaragtay waa qof intuu ilaahay baryay ilaahay wax ka aqbalay weeyaan buu yidhi maxaa dabeedna manacas uu iwaaniyey halkii baan ku degay maaragtay marka gabaygaas baa maaragtay dadka ay aad u hahayeen gabayadii kala weyba iloobeen iyaguna kaasaa gel jiray yaaji beri iyay hahayn jireen waa tahay waxaan oran karnaa marka gabayada ugu horeeyey ee dadka ay kugu maqlaan buu ka mid ahaa intaad yarayd marka abwaan kolley barnaamijkan wuxuu noo noqon doonaa barnaamij taxana ah oo adiga nagala qayb qaadato oo sooyaalkii soomaalida ee deegaankan Ethiopia aad kaga hadli doonto isbedeladii Ethiopiadii hore Ethiopiadan dambe aad kaga hadli doonto qaybtani waxaan kugu martaqaanay in dadka afka Soomaaliya ku hadla ee fankaaga iyo waliba gabayadaada jecel magacaaga maqlay muuqaalkaaga inaan barno taariikhdaada inaan ogeysino ayaan ugu talagalnay bal imika waxaan jeclaanayaa wali barashadii ma ku guda jirnaa magacaaga Cabdullaahi waxa ka weyn Doodaan bal Doodaan xagee buu ka yimid Doodaan su'aashaas meesha way ku jirtaa anigu waxaan ahaa niman hadlin oo aamusan oo madax buuran oo calool weyn oo shilis baan ahaan jiray marka caruuraha ma raaci jirina waxaan dhagaysan jiray dadka waaweyn maartay ama kabdhoodka ama geedka ama ardaaga fadhiya kambalada meelaha yaan sheekadooda jeclaa haddaan raggaa waayona islaamaha reerka ee waaweyn yaan sheekooyinkooda dhagaysan jiray oo qaar baa raggaba kasii sheeka fiicnaa taariikhay ka sheekayn jireen marka wax badan baan ummaddaa ka xafiday hataa inaan wax xafidayn cidi wari mahayn marka berigii dambe anoo 3 jira intaanan aad wax u dhagaysan yaa reeruhu mawlid akhristeen meel wardheer agteeda oo leeyahay qodaxle mawlid baa la akhristay kolkaasaan raggii maaragtay kutubaha aqriyay raggii la qaadayay codkoodii fiicnaa waan jeclaystay kolkaasaan waxaan damcay galabtii annayna alla bari sameeyo ana alla bari 3 jir baan ahaa sida la sheegay inaan ahaana waan u malayno sidaa beer goor la tegay iyo goor beerji laga tegay iyo booji ilma yar baan ahaa markaasaan haan unuga oo haamaha dhoon horaada laga dhiqabada laga tasho oo dhexda joogto ayayday tolanaysay ayayday oo reer qabdaara ah martay oo xaadsan maxamuud la dhijir haanay tolanaysay intaan aqalkeedii galayadoo soo awriyo wax u kacday haantii waxaan ku shubay biyo waxaan ku shubay canaciira waxaan ku shubay baalkii maxaan ku dhahdaa maaragtay jireed meel lagu waray waxaan ku shubay colob kale oo haddana masaf ku waran waxaan wax far badan baan isku daray markaasaan waxaan rabaa inaan caruuraha ugu yeedho iyaguna akhristaan sidii wadaadadii maanta oo saaka oo kale markaasaan wixii aanoo la legdamayo kolba la kufayo toosanaya aqalka halka labada udub xoog dhexdooda iyaan waxaan is yiri geeda adarigii ay hooyadaa ku dari jirtay maaragtay masagada jireed iyo kolka qoryaha maxasa waxa ila ekaatay digadii adhiga intaan tagay baan digadii soo cantobta ku noqday abdalsood markaasaan ku daray geed adari baan uga dhigay marka anoo wixii la legdamayo wali caruurtii u yeedhay baa ayadii timid marka intay saa ii dhowrtay allah tiri oo yar qosashay bay hooyaday u yeedhay ay tiri nabalkaali kii dhoodaan sanaa wuxuu sameeyey
يتر دمر بدن بأسوق ولا يقول قصلك قبل راح عمر لديه شري الددية يا يقرب فسطي دمر كي يقول ما تسني وحيو أنا أسكت ضابط نحن نقول أقل كيودي بيلا تكتي مركزي أوه ودودان يضل يجب ما يدوي عانى ينا يبويس هبينك عروري مركي العويني دودان يقول هل أرد هل كاسي يجلس صوتي أرنتو أنا وحنا هايستي فم كيك إياه وحياله يوحنا قصير إلى وجهدي بوق إنجليز تانكو أركي هذا ما كونيو سجال بقوليو سديتن إياه لبادي يام بوق وحنكو أركي إنجليز دودان الكي النبي يوسف لقول ذي إن ليدا وهو عفجي ودادية دودان تنبا الكي النبي يوسف لقول ذي ما ركتي وأي كنت الماما يعني that well is name is دودان أي لين مرت ينبوقا كوارك وان يا أبو عايد هذه حقيقة سوقاتي وعن مرت تلوم عرويد هذه بالشيء سبحان الله نسيت وان عنا دم بدنا مرت ها marka magacaaga sidaas oo kugu baxay xaqaas u kayid marka wahagaag akhyaarta sharafta mudan hawada sida tooska ah inooga daawanaysay kaasi waxa uu ahaa abwaan Cabdullaahi Macalin Axmed Cismaan oo ku magac dheer abwaan Doodaan waa abwaanka aad wada taqaanaan oo barnaamijkani martidii noogu ahaa hadduu ay barhal ka noqdo barnaamijkani waxa uu noqon doonaa barnaamij toddobaadla ah oo had baan qodob ku soo qaadan doono abwaankana markaa martidii noogu noqon doona hadduu ay barhal ka noqdo barnaamijka aniga maxamed xasan ayaa la socodsiinayay abwaankan waan ku wareysanay aad buu mahadsan yahay kaamiradan waa maxamed shucayb intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona hadduu ay barhal ka noqdo nooli kulantay